عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal halkani waa Jabba TV xaruntiisa dhexe ee Helsinki ee waddanka Finland. Qodobada maanta aan soo qaadan doono waxaa ka mid ah guddiga dhamaystirka sharciga doorashooyinka oo amar degdeg ah la siiyey. Guddiga wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo xil saaray dhamaystirka habraaca doorashooyinka qaranka ayaa lagu amray inay toddobaad kusoo dhamaystiraan shaqada loo igmaday. Go'aanka ayaa lagu gaaray kulan shalay warbixin looga dhageystay guddiga oo ay hortageen guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddigaas Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa sheegay in qabyo qoraalkii ugu dambeeyay hadda ay gacanta ku hayaan isla markaana dhowaan guddoonka soo wareejin doonaan habraaca dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa guddigan ku ammaanay shaqadii ay soo qabteen isagoo intaasi ku daray in dalku uu gelayo doorashooyin isla markaana guddiga looga fadhiyay in shaqadooda ku idleeyaan muddo toddobaad ku siman. Gudoomiyaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa dhankiisa ku ammaanay guddiga shaqadii ay soo qabteen. Guddigan wadajirka ayaa guddoonka baarlamaanka u xil saareen in ay soo dhiraandhiriyaan habraacyo 4 ah oo uu tilmaamayo sharciga doorashooyinka qaranka, sida koontada haweenka ee baarlamaanka, sida deegaanada loo qaybinayo kuraasta xubnaha baarlamaanka, waxyaabaha laga yeelayo magaalada Muqdisho, sida loo dooran doono xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland. Sida uu qorshuhu yahay 27 bishan March waxaa baarlamaanka hor imaan doona guddiga doorashooyinka qaran si ay usoo bandhigaan nooca doorasho ee dalka uu galayo iyo qaabka loo dooran doono.